buugaag kuraasi yaalaan dadna wax ku akhrisanayaan oo kaliya imika laakiin waa laga balaariyay waxa lagu daray qaybo kale oo fara badan sida la sheegay marka library wuxuu leeyahay qaybtii ay taalay buugta iyo maaragtay waxa wax laga akhristo qaybtii lagu doodayay qaybtii lagu soo bandhigayay qayb kale oo maaragtay madadaala intuba way ka kooban tahay marka library-ga waa library casri ah oo la jaan qaadaya library-yada dunida library-gu muxuu faa'iido leeyahay baa iyadoo la isir weydiin kara horta marka koowaad wuxuu kor u qaadayaa sida la sheegay garaadka iyo wacyiga ummadda marka labaad wuxuu qayb ka noqonayaa isdhexgalka daa'irta iyo dhalinyarta oo haddii loo sameeyo meel ay iyagu wax ku akhristaan oo isku arkaan waxa fududaanaysa inay isdhexgalaan waxa kaloo ku jirta faa'iido dhaqaale dad badan waxay ugu guuraan gobolka oo Hargeysa ugu guuraan qayb ka mid ah waxa weeye ubadka oon helin waxbarashada u baahnaa oo ay ka mid yihiin library-yadu haddii markaa library-ga aynu maaragtay aynu ku dadaalno waxa hubaala in dad badan ay magaalada joogi doonaan haddaanay qolo kale u soo guurin gabilahaan maciishada Hargeysa aad bay qaali u tahay magaaladiina way u dhowdahayeen Hargeysa gabile marka waa inaynu ka fikirno halkaynu imika dad badan ay u guurayaan sidii maaragtay looga faa'iideysan lahaa nolosha jaban ee gabilayna soo jiidato dad badan oo library-gu ka noqonayo mid maaragtay u hormooda gobolada kalena waa sida ma jirto magaalo weyn oo aan ka cabanayn in dadkeedii wax yaqaanay dadkeedii xirfad lahaa dadkii dhaqaalaha ay caasimadda u soo guurayaan sababtuna ay tahay adeegyo fara badan oo caasimadda laga helayo oo gobolada kale ka helay sida uu sheegay wasiirku waxa ka go'an dawladdu iyadoo madaxweynuhu ugu hogaaminaya siyaasadda in la sameeyo library ay bulshadu leedahay ama maktabadaha wax ku akhristaan si ay kor u qaadaan library-gu waxa kale uu leeyahay oo inta dheer marka ka tagto waxa weeye aqoontu maaha kaliya inta lagu jiro aqoonta maaragtay rasmiga ama formalka maaha dugsiga maaha jaamacadda kaliya waa aqoon socota ilaa inta aad ka dhimanayso waxa la yiraahdo continuing learning haddii aanad wax akhrisanayn haddaanad wax faa'iideysanayn aqoontaadu way kala dhiman tahay waxa jira waxa la yiraahdo Morris Low uu soo saaray in la yiraahdo Morris oo ah 8 bilood kastaba aqoonta bini'aadamku soo saaraya way laba laabantaa haddaad wax akhriyo weyda aqoontaadu waxay noqonaysaa obsolete ama wax laga tagay oo dhaco expire waxa kale oo la yiraahdo qofku haddaanu bishii ugu yaraan hal buug aanu akhriyi karin hal buug haddaanu akhriyi karin buugga la sheegayaana waa ilaa 300 page ku dhawaad oo u dhiganta maalintii 10 page haddaanu akhriyi karin waxay ka dhigan tahay qofkaasi aqoontiisu waa aqoon maaragtay iyaduna kala dhiman maxaa taa lagu helay in la helo library qof kasta ma iibsan karo buugtu u baahan yahay haddaan wixii la wadaageen oo buugtii aan maaragtay meel loogu soo hagaajin jirin oo dadku aanay maaragtay buugta aanay kala qaadanay waxa weeye akhriskoodu wuxuu uga baahanayaa inay lacag badan ku bixiyaan si taa looga fogaado in la helo library waxa kale oo dheer oo library-gu uu sahlaya in sida imika laga sameeyo meelo fara badan kale gablin way ka jirtaa naadiyana way ka jiraan in inta buug la soo akhriyo dadku ay ka doodaan fikradda uu buug uu sido buug marka la leeyahay macnaheedu maaha quraan iyo xadiis soo degay qoraagu wuxuu doonayaa inuu fikrad soo gudbiyo fikradda uu soo gudbiyo inta la soo akhriyo laga doodo la naqdiyo la kristaas gareeyo maxaa faa'iido ku jira maxaan ku jirin kadib maaragtay dadku wacigooda kor u qaado taasna waa meelaha library-ga lagu maaragtay qaato أنا أقول تيار جامعات وحن كشري صدق 13 سنوات أفر هير كي جامعات هلا أفر دنبال ما ماسترا يصدق PhD كوبي تمن كاس سنوات يلا بس سنوات حيسي أنت عن كفايدة library كا كبرنا أنت عن ماركتي أقول تام formal كا ماركتي عن كفايدة قف كسوس أركي library ده دون كنا ويكون شركة كافيتيريو قالوا يبقى مغلي لا هدال يحبل فري library هذا الله ميل لقول شيء معصدة لقول أرض يمكن لقول دري لفت كذا ميل لقول شيء معصدة لقول دري waxa lagu daray cafeteria waxa lagu daray meel wax lagu daawado way wax la doonayaa saacadaha qofku joogo wax akhriska inuu dareemo goob ku haboon in wax akhriyo meel wax lagu akhrisan karo sidii la inoo sheegayna marka taasi waa talabaad ee kale waxa laga sheegay hadhow maamulka waa la dhisi karaa sidoo sii socon karaya waxa la inooga baahan yahay maamul iyo haday noqoto dhaqan iyo haday noqoto waalid iyo haday noqoto dhalinyar iyo haday noqoto maaragtay bulshada kalaba inaynu ku dadaalno sidee aynu uga faa'iideysan karayna waxaynu uga faa'iideysan karaynaa inaynu yeelano dhaqan wax akhris imika meelaha markaad airport-da marayso markaad raacdo tareenada qof walba buu sitaa inta uu fadhiyo la soo baxay oo akhriya indagana wax laga yaabaa in intaas oo saacado aynu ku qaadano maaragtay hadal iyo sheeko iyo dood
marka gabilay dadku dhaqan iyo bulshada waxa la inooga baahan yahay inaynu dhaqanka wax akhriska ay noqdo mid ka mid ah dhaqamada aynu maaragtay aanu leenahay waxaan ku soo gabagabeynayaa sida la sheegay kharash ku baxaya waa 3 qaybood qayb golaha deegaanka qaatay waynu aragnay wata maanta baa la bixiyay qaybna dawladda dhexe ku filan qaybna waa bulshada reer Gabley oo intii yarayda marka haday noqoto ganacso haday noqoto qurba joog iyo haday noqoto inteena kala wax la inooga baahan yahay si aanu dib inoogu dhicin inaynu maaragtay contribution-ka aynu keeno gobolada kalena si ay u horgalo maaragtay librarians iyaguna inay qaybtooda ay soo diyaariyaan dawladdu waa idin diyaar wax qabadka xukuumadda waxa kamid ah waa ku jirtay toddobadii rukni ee lahaa maaragtay barnaamij siyaasadeedka xisbigu maaragtay lagu galay codkii 2017 waxa kamid ahaa qaybta bulshada waxbarashada waxa kamid ahaa in xisbiga kulmiye 5 sano soo socda oo dhammaan gobolada ka hirgelin doono rugo wax lagu akhristo marka waxa weeyeen bulshaduna inay wax ku darsatay xukuumadda iyo xisbiguna waa diyaar madaxweynuhuna isaga nagu hogaaminaya siyaasadda gabagabadii waxa weeyeen wax qabad ugu weyn diintuna inoo sheegtay 3 amal baa maaragtay qofku markuu dhinto raaca waxa kamid ahaa cilmi yuntaficu bihi oo maanta taa kamid ah goobta cilmiga wax lagu akhrisanayo iyo diyaarinteeda haday noqoto buug la keeno iyo haday noqoto maaragtay wixii kala raacaba adduunka aakhiraba ajir waa laga helayaa anagu wasaaradahan waxaan kaga beeganahay markaad ka tagto waxa weeye inaanu diyaarino waxa la yiraahdo e-library oo ah library-ga technology-ga ku socda oo imika halkii maaragtay hay'ado badan oo bixiyaan way jiraan halkii tusaalahaan 20 kun oo buug ka qaadan lahaayeen space ama dhul xooga waxaad helaysaa 2 milyan oo buug oo software oo loo diyaariyo serveradoodii iyo wixii kale u bahnaayeen marka wasaaradahan taas aan ku contribute gareynaa marka waxaan leenahay hambaliyo golaha deegaanka oo hawshoodii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada wax badan ka qabatay wasaaradda hawlaha guud iyadana dhulka maaragtay qayb weyn ka ahayd wasaaradda caafimaadka oo bixisay isbitaalka hal mid aan ku noqon lahaa qolooyin baa lahaa caafimaadka ka muhiimsan waxbarashada qofku wacigiisa iyo aqoontiisa waa ta keenta xanuunka iyo maaragtay iyo caafimaadka qofku hadduu garanayo waxaan ku dhacay inuu yahay xanuunka noocaasa wuxuu raadsanayaa dhakhtarka ku habboon labada caafimaadka wax laga horreysay waxbarashada caafimaadku waa sax markay wax dhacaan baa qofka la daweeyaa waxbarashadu laakiin intaana xanuun kugu dhicin baad sii ogaanaysa wacigaagana kor loo qaadayaa marka waxa maanta waa maalin aad iyo aad u qaaliya sidoo kale waa maalintii dhalinyarta cidda ugu badan ee maaragtay ka faa'iideysan doonta waa dhalinyarta haday tahay dhalinyarta maaragtay daayarta iyo haday tahay dhalinyarta cuslaatay labadaba